qisadan waxa ay ku saabsan tahay ama ciwaankeedu uu yahay xaaskaaga ha u ogolaan in ay xirato dhar gaagaaban si ay u muujiso jirkeeda iyo cawradeeda. waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. qisadan waxa ay ka dhacday tareen dhexdiisa. tareenkana waxa uu u safrayay inta u dhaxaysa Qaahira ilaa iyo magaalada Aswaan. mid ka mid ah kuraasii ugu horreysay ee tareenka waxaa fadhiyay nin 50 sano jir ah. ninkana waxa uu xirnaa dharka reer miyiga, dabcan waa nin reer miyi ah, waxaana ka muuqatay sharaf iyo ixtiraam. dhinaciisa waxaa fadhiyay wiil dhalinyaro ah 27 ilaa iyo 30 sano qiyaastii. kadib waxaa imaaday wiil dhalinyaro ah iyo xaaskiisa oo ay ka muuqatay in ay yihiin dad dhawaan isguursaday. waxayna soo aadeen dhinacii ay fadhiyeen ninkii reer miyiga ahaa iyo wiilkii dhalinyarada ahaa si ay u fadhiistaan labada kursi ee ka soo horjeeda. laakiin nasiib darro, wiilkii imaanaya xaaskiisa waxa ay xirneed surwaal iyo fanaanad yar, waxaana muuqatay xudunteeda iyo xabadkeeda. wiilkii dhalinyarada ahaa ee fadhiyay ninkii reer miyiga ahaa dhinaciisa ayaa aad ula yaabay gabadhii, isagoo xusuladiisa saaray jilbihiisa, calaacalaha gacantana waxa uu saaray dhabanadiisa, indhihiisana wuxuu ku aadiyey gabadhii, aad ayuuna u fiiriyey asagoo la yaaban. kadib gabadhii ninkeeda ayaa arkay wiilkii dhalinyarada ahaa ee ka soo horjeeday oo xaaskiisa aad u eegayo. intuu la hadlay ayuu yidhi si carro ku jirto, war xishow oo naftaada ixtiraam, waxaad samaynayso waa ceeb, haddii kale waxaad ku shallayn doontaa maxaan u fadhiisan waayay kursi aan kan ahayn. ayagoo sidii u doodayaan waxaa soo dhex galay ninkii reer miyiga ahaa. gabadhii ninkeeda ayuu ku dhahay asagoo xanaaqsan, adigee waajib kugu tahay in aad xishooto oo aad naftaada ixtiraamto, adigeena kugu tahay ceeb oo u ogolaatay xaaskaaga in ay xirato dharkan yaryar oo cawradeeda bannaanka soo dhigay. sidaas oo kale kuma oran lahayn marna, xor ayaadna u tahay xitaa xaaskaaga haddii ay kula socoto iyada oo aan dhar wadanin. laakiin waxaan ku dhihi lahaa, adiga ayaa u ogolaatay xaaskaaga sidaan si ay u noqoto wax lala yaabo oo ay dadka dhan soo wada eegaan. haddaba maxaad u xanaaqaysaa oo aad u diidaysaa in xaaskaaga lasoo fiiriyo, ileen adiga ayaa sidaan u ogolaatee. ninkii reer miyiga ahaa ayaa hadalkiisa sii watay, wuxuuna ku dhahay ayadoo si naxariis leh ay ku jirto, wiilkaygiyow, adiga ayaa u ogolaatay in xaaskaaga jirkeeda la fiiriyo, kulligeenna waxaan xaq u leenahay in aan fiirino, ileen adiga ayaa asturan weyday wixii aad xaqa u lahayd in aad keliga aragto. haddii aad ka carootay fiirinta wiilkan uu sida xun u fiiriyay xaaskaaga, iska cafi. wuu jeclaa in uu araggiisa xajiyo, uu si caadi ah u fiiriyo, balse wuxuu arkay wax araggiisa daciif ka dhigay. wiilkaygiyow, geedaha marka ay ka daataan caleemaha oo ay ka dhammaadaan, wuxuuna noqdaa geed meel cidlaha iska taagan oo aan har iyo hoosba lahayn. kadibna dadka way goostaan si ay uga dhigtaan xaabo dabka lagu shito. dumarkana waa sidaas oo kale, haddii ay isku qaawiyaan dadka hortooda waxaa u dambaysa naar iyo cadaab. gabadhana waxa ay nooshahay marka ay xijaabka xiran tahay oo ay asuran tahay, waxayna dhimataa markay xijaabka tuurto oo ay cawradeeda bannaanka soo dhigto. ninkii xaaslaha ahaa ayaa aamusay, wuxuuna sheegay ayuu garan waayey, waxaana saameeyey ninkii reer miyiga ahaa hadalkiisa. naagtiisana wejiga ayaa casaaday ama guduutay sidaad u taqaano. gaar ahaan dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenka ayaa sawaxan dhexdooda ka kacay, iyagoo la yaaban hadalkii qiimaha badnaa ee ninkii reer miyiga uu u sheegayey wiilkii iyo xaaskiisa. waxyar kadib wiilkii ayaa istaagay, xaaskiisa ayuuna gacanta qabsaday, tareenkii ayuuna ka degtay asagoo hoos fiirinaya oo isku yaxyaxsan. haddaba daawadayaal, halkan ayay ku eg tahay qisadeena maanta. sii faafi qisadan si ay u gaarta gabdho badan oo ku kadsoon dhalanteedka adduunyada iyo moodallada qaabka daran ay ka soo maanguuriyeen dad aan diinta sal iyo raad ku lahayn. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay fadlan sabskaraib taabo, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe. mahadsanid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم